السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سودوادة وولاشين هبوني وإذن كسو سلاميسو كندا ميل يراهدو تاريخ ضمانتو واسده بسم الله الرحمن الرحيم أيتنك بشي صدحات وفرايداي وأبريل صدحديدي فرايداي 2020 saacadaas bishii saddexaad oo caalamku uu galay maxaan ku dhahaa spring la galay already ama rabiic qofku sidoo u yaqaano annaka baraf baan da'ay asxaabeen oo sida caalamkan soo yaalo hadda waa 3 saac oo subaxnimo waa quraacnooya waa kaas baraf baa da'aya Canada saogtiin waa qabow horta laakiin sasitaadana way kala qabowdahay waxay leedahay mandaqado oo fiican oo aan qabow lahayn sida British Columbia oo kale Vancouver meel caasimadooda la dhaho BC waa sida Ingiriiska oo kale marka anaka winterka ugu xun ay noo tahay oo bilaha December maxaan ku dhahaa November December iyo January oo ay noo gaadho -35ka oo foodhida ayaga baraf yar u doo oo roorab camal oo la iska dhex socdo yaani waa jawiga Ingiriiska oo kale marka meeshaasaan leenahay laakiin inteena kale waa qabow aad bay u qabowdahay waxaa jira mandaqado maxaan ku dhahaa nooradka kore subxaanallah winter time-ka markay tahay horta sanadkii oo dhan 2 bilood bay waxay arkaan summer 2 bilood baa summer oo yaani ay kulayliyo qoraxda arkaan labadaas biloodna qoraxda kama dhacdo daytime waaye 24 hours waa maalin waxa ku soo haray winter time-ka qaboobaha ama shitaaga waxay ku jirtaan waa habeen qorax kama soo baxdo maalin dhan ma arkaan qaboobahana habeen iyo maalin inta samarkoo dhan malaha waa 10 bilood bay qabaan oo maleena oo 9 bilood samarka waa qaboobaha intaas oo dhan habeen iyo maalin habeen bay u tahay maalin ma arkaan qorax ma ka soo baxdo kulaylaha labada biloodna waxa maalinta qoraxda halka sii taagan tahay doorkii ama anaga qaboobihii waxa qoraxdu waxay noo dhacdaa 10 saac galabtii ama 4 ay dhacdaa habeenkii dheer subaxina waxay soo baxdaa sometime 9 iyo wax la jiray marmar soo baxdaa bilaha ugu khatarsan marka waa kaas waxa arkay meelo oo ubaxi ka soo baxay oo geedaha ka soo cagaarteen inta geeduhu si u qalalan yihiin wala geed leh kuma jiro caleen kuwaas geedahaas waa geedaha barafka iyaga barafka waxba kama dhibo qabow iyo kulaylaba waxay leeyihiin caleentaas waa kuwa barafka waa geeda adag ama geedaha caadiga way qalalaan ama jiradii la dhahay ilaahay naga badbaadiyo kulligeen bee Soomaaliya iyo inta islaam ilaahay inta ummadda oo ilaahay abuurtay ba muslim iyo gaalba dhibaato looguma duceeyay ilaahay naga haayo ilaahayna naga soo anaga dhaqsaha nooga soo baa ilaahay naga soo gaaro jiradaas waa corona anaka barafkaan adduunyada jira ma imaanays virusku ku dhimanaa jiraasiinta dhan way dishaa marka waa iska corona inkastoo anaka Mareykanka naga soo galay USC haddana Mareykanka waa corona weli qof oo dhintay horta aan ma arkin jiradaas dadku way sheegaan laakiin weli ma arkin waa la yar buubuuniyay wax yar waa hargab la buubuuniyay marka
jiradaas inta kama waa ku yar tahay leanna waa ujeedaan barafku wuu da-ooya ina arkaysaan iyo in kale ma aqaan hadda dhow wuu bilowday dhulkana waa kasoo ku yaryahay laakiin mid horaa sii yaalo dhulka waa kaas uu wada cadyahay marka iisoo dhawaada kulligiin meel kastoo joogta ilaahay caafimaad ha idinku siiyo ilaahay dhibaatooyinka naga hayo soomaaliyana hadda leeba wada magaalooyin cusub waxaa ka bilowday xarbil ahli dagaal sokeeyo cusub baa hadda bilowday qabiil baaba hadda la isku dilayaa 91kii dib loogu noqda 30 sano waa ka fiicnayn dadku qabiilka way iloobeen qabiil la isku bursan jirin laakiin hadda waxaa arkayaa meelo badan oo ka socdo dagaal qabiil dagaal wiil baa ku dhinto wiilku ma dhasho say Soomaalidu ku mahmaado waa run ilma ku agoon habara ku goblamayso ilma agoon ku noqonayo naaga asay ku qaadayso dhibaatooyin badan buu leeyahay ilmahaas agoontana hadhow qof korinayo male Soomaaliya qof walbatiisa haysata ilmihiisu la daala dhacaya mar ilaahay waxaan ku baryaynaa noogu duceysaan inuu ilaahay uu joojiyo dagaaladaas naga joojiyo dadka walaalo isdiliyeen oo qulubtooda isku mariyo waxaa la dhihi jiray malab sabab ma amsi malab inuu ilaahay kala qaboojiyo waa dad Soomaaliya oo muslimiin oo wada dhashay maxaa macno lahayn bay isku dagaalayaan haddii kala waxa laga yaabaa inuu dadka dhex faa'iideysto iyo shaydaan marka walaalaheen u soo duceeyo inuu ilaahay dagaalada ka joojiyo waxaan idinku bishaareynaya Ramadaan baa noo soo socdo cudurka insha Allah Ramadaan I think waxa maleena inay bilaabanayso April 28keeda 27keeda waxa ugu dambeeyso cudurkan corona asaga Allah dib ha u keeno laftirkiisa kaasa noogu dambeeyay Ramadaanka khayrkeeda insha Allah ma arkayna corona wuu naga baaba'aya marka ku bishaaraysta inuu ilaahay Ramadaanka naga baabiinayo ilaahay Ramadaanka fadligeedu nooga baabiinayo cudurkaas ilaahayna dhibaato nagu ma gaarsiinayo isoo dhawaada asxaabi kulligiin meel kastoo joogtaan kay maalin u tahay kay subax u tahay kay duhur u tahay kay habeen u tahay waa soo dhaweynaya everywhere oo adduunka ka joogtaan ilaahay idinku amaansado wax kale oo idin dhahay male adduunka maanta duco waxaan ahayn oo aan isku sheegayno aan isku qaban karna ma laha nin walba meeshiisa ku xirtay oo u jeedaa adduunka shimbire xataa waxa u maleynaa laakiin shimbiro hadda wali anaga ma noo bilaabanin leena waa winterkiyo shimbiraha winterku way ka tagaan inta way qaxaan waxay iska dhiibaan Mexico iyo waxay iska dhiibaan Hawaii iyo meelahaas u qaxaan meelahaas soo joogaan markuu saacadaha way soo noqon jireenba anana leena winterka dheeraaday sometimes wuu dheeraadaa waxaan xasuustaa 2016kii 2016 wallaahi June waa bisi ugu kulul anaga agteena June iyo July baa noogu kulul oo maalintu way dheer tahay 6 saac habeenkii 4 saac 5 saac awal Ramadaanka noogu soo aadi jiray bay qoraxda noo soo jeedaa 4 saac waxa la jiraa la afuri jiray bilahaas mar ay tahay June 2000 iyo 16 wallaahi June baraf baa da'ay waan xasuustaa ilaa ay hadda maalintaas ma iloobo leano taariikhda waa wax ka baxsan qawaaniinka ahayd marka isoo dhawaada walaalaha waa quraacana intaas yar baan rabay inaan idin la wadaago ma sha Allah soo dhawaada waa idin salaam